Isniintii oo ku beegnir taariikh 25 bishii 2024 shir weyn ayaa ka dhacay xafiiska UNHCR iyo labada hay'adood ee u qaabilsan qaxootiga iyo hay'adan DRS oo shaqaaleynta loo yeeray iyo maamulka guud ee xerada oo laga wada hadlay dadkii faraha kabaanaha saarnaayeen oo muddo badan oo kistooda buufiska xayirnay in dib loo shaqeyn doono oo loo dirdirin doono ayay sheegeen. Marka waxay dhaheen dadkaas waa dad qaybo badan ay kala duwan yihiin. dadna waxa way horaana loo shaqeeyay waxoodii sharcigoodii waxa dhan intay xareeyeen warqad sharci la siiyay. dadna wali lama siinino wali looma shaqeynin. waxaasoo idin waa loo shaqeyn doonaa yaan lahay maanta talaada ayay bilaabatay. marka dadka laba qaybood waaye. qaybta koowaad waxa kamid ah dad horaan loo soo shaqeeyay oo sharciyada dhiibay oo waxa la jira warqad la siiyay oo sharciyeysan iyo dadkaas waxa loo sameeyay loo qabanay in proof sheet koobiga ah ayaa laga qaatay iyo warqada sharciga horaan ay ku xareeyeen oo kabaanihi ayaa laga qaaday oo koobi ah iyo telefoon lambarkooda ayaa loo qoray. marka dadkaas waxa loo hagaajinayaa in qaybta buufiska ay ka xirnaayeen qaybta buufiska ayaa loo saxayaa oo loo approve gareeyo loo hagaajinayaa. dadka kale oo kabaanaha la iska saarayna ama sharci ee lahayn la dul saarana oo wali aan si fiican horaan loogu shaqeynin ayaka ka naftarkooda waa loo baahan yahay. ayakana waxa laga qaadanaya manifestooda koobiga haddii sharci horaan ay haysteen oo kabaanahaas ayaa laga qaadayay oo sharcigaas oo koobi ah. waxaasoo idil ayaa ayakana iyo telefoon lambar laga qornay kuwaasna mar kale ayaa loo shaqeyn doonaa dad kale ayaa u shaqeyn doona loo yeeri doono. dadkii saaran oo sharci aysan haysanin manifest wixii laga qaaday wixii macluumaad iyo su'aalaan waa la yeerinay. marka shaqada si toos ay u socotaa haddana marka haddii aan la fiiriyo qaabka hadda loo fiirinayo waxa kamid ah waa qaab aad u fiican. dadka hadda waxa waaye oo horaan loo sii shaqeeyay qaarkood waxay qabaan aaliyamo maadaama mar hore ay xareeyeen qaarna aaliyamo qabaan aalinka ay xaggooda ayaa waxa ka saaran double registration waxa la hayo kabaanihii oo dadka saarnaa oo dadka lahaayeen mise ay kabaanahoodii hore ay wali meeshka fuulo dadna xagga buufiska ayaa wali ka cadideen oo wali ka xiranbo. marka waxaasoo idin waa loo shaqeyn waana arrintaas waa arrin aad u farxad badan. dadka horaan daneyn jiray oo mar badan inkastoo muddo badan ay ku qaadatay dadkan faraha kabaanaha saaran oo horaan sharciga dhiibay laakiin hadda arrintan ee hadda ku dhawaaqday dowladda Kenya ee DRS ee hay'adan u qaabilsan DRS iyo UNHCR waxay dhawaan soo afjari doonaa sida dhaqsiyaha badan. insha Allah waxaan rabnaa inaan gabagabeyno oo dadka wax fiican loo qabto. haddana sharciyadoodii oo horaantii hore ee warqadii la siiyay oo sharci markay dhiibayeen iyo manifestoodii originalka ah oo koobi ah iyo telefoon lambarkooda ayaa loo qorayaa xagga buufiska ayaa loo soo saxi doonaa. wixii su'aal dheeri loo baahdana telefoon lambarka laga qortay ayaa dib loo soo wici doonaa waa loo hagaaji doonaa sida dhaqsiyaha badan ayay dhaheen qoladan hadda u qaabilsan oo xagga DRS meesha la aadi doono xafiiskan waa xafiiska DRS ayaa aadi doontiin. dadkii maanta aaday oo loo shaqeeyay section ayaa la dhahay section A iyo section A11 inkastoo laakiin dadka iska wada yar yihiin dadka qaarna ay ka warhaynin wixii maanta wada imaaday dhan waa la wada shaqeeyay. marka waxaa la wada codsanayaa dhammaan dadkii oo arrimahan oo faraha kabaanaha saaran oo buufiska oo sugi jiray ama arrimahan qaxootiga rabo inay wax loo hagaajiyo fadlan waxaad booqanaysiin xafiiska ee DRS ee dowladda Kenya ee DRS ee ku yaalo u dhow UNHCR ama tareeska u dhow nin walba uu garanayaa waana xerada Dhagaxley dadka ku soo xerada Dhagaxley. marka midasna waxaan iga codsanaa dadka inaad muuqaalkan sheeg gareysaan dadka walaalada kale ee kabaanaha saaran inaad u sheegatiin muuqaalka dariskiina ah qaraabada ah wixii qaxootiga jooga wixii maqan oo safar jiro dhammaan ha loo sheego fursadan dahabiga ah ka faa'iideystaan mar walba ma la helayo fursadan. marka qofkii horaan saaran iyo horaan loo hagaajiyo qofka cusub dhammaan waa la wada shaqeynayaa. marka meesha la aado xafiiska la aado waana loo shaqeynayaa. midda saaran inaan sheego waa arrin aad u fiican ha laga faa'iideysto fursadan dahabiga ah. haddii aad channel ku cusub tahay qaxootiga dhab TV waxaan iga codsanayaa sharaf leh inaad muuqaalkan like saartaan subscribe saaro dambeelka furo si aad joogto hesho warbixinadeena taxanaha ku saabsan arrimaha qaxootiyada caalamka iyo sidoo kale arrimaha buufiska ama dib u dejinta sidoo kale warbixin waa soo barin doona insha Allah. aad iyo aad mahadsantiin Ramadan Kareem insha Allah bil cibaada lagu jira insha Allah walbana muraad ilaahay muraadkiisa u sahlo aad isku duceeyna insha Allah.